ilma adeerayaalow haddaan tol iyo qaraabo nahay soomaalinimo naga wada dhexeyso wiilkaas yarka ah mustaqbalkiisa yaa la baabi'inin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maanta meeshan waxaa usoo fadhiistay arrin aad iyo aad aan u dhibsaday dagaalka ka socda social media ee ka dhexeeya walaalkayga Daahir Cali Sow iyo walaalkayga Sharma Boy, geeska kalena oo taagan yahay Shiino Culey iyo rag badan. Horta haddaan ku hormaro Daahir Cali Sow, qof walbaba qofka kooban yahay libintiisa waa la siiyaa. Marka haddaan ku hormaro Daahir Cali Sow, Daahir Cali Sow waxaa ku aqaanaa in uu yahay one of the best Somali journalists, waliba kuwa aniga aan ugu jeclahay ayuu ku jiraa. haddaan dhanka kale u fiiriyo Daahir Cali Sow waxa waaye nin markasta fanaaniinta garab taagan, hiil iyo hooba xayisiin waqtiga u baahdaana u suubiya. hadda u soo jeesto dhanka walaalkayga Shiino Culey, Shiino Culey asna wuxuu ku jira one of the best Somali YouTubers. waliba ninka fanaanka ah markuu reaction ka bixiyo xayisiin bay u tahay, soo asna wuxuu ku jiraa ragga fanaaniinta Soomaaliyeed markasta garab siiya. Sharma Boy dhankiisa haddaan usoo jeesto, Sharma Boy horta xilligii igu horeysay oo aan arkayay show ayaan ku lahay magaalada Muqdisho, kadibna waxaa la igu keenay gurigii aan joogay xilligaas. Sharma Boy meesha wuxuu igu tusay waxyaabaha oo qoray ama heesaha oo sameeyay iyo talentiga oo leeyahay. kadib raggii la socda waxaan ka codsaday in Sharma Boy tiyaatarka ay fursad ka siiyaan, wax alaale wuxuu jecel yahayna oo ku soo bandhigo. maalintaas iyo maanta Sharma Boy wuxuu kala yahay laba qof. maanta meesha uu joogo waa nin kasbaday qalbiga dhalinta Soomaaliyeed adduunka meel walba ay joogaan. ma dareemi kartiin meesha uu joogo dhibka uu u soo maray in uu ka muuqdo, laakiin anigu waa dareemi karaa. ninka raabarka ah wada dheer ayay ku qaadataa in lagu tilmaamo in uu yahay fanaan Soomaaliyeed, laakiin marka tahay fanaan caadi ah laba hees oo qof hore uga dhintay hadda soo qaadid listiga fanaaniinta Soomaaliyeed isla markii waa gashay. 4 jeer hadda gacanta saan dhahdid listiga fanaaniinta Soomaaliyeed isla markii galeen. laakiin qofka raabarka ah rafaad iyo silac badan ayuu kala kulmaa in uu noqdo fanaan Soomaaliyeed. Daahir Cali Sow iyo Shiino Culey iyo ragga kale oo dhan oo arrintan ku jira, dagaalkiina iyo waa kaas ayaa Sharma Boy wax ka qaadi kara. Sharma Boy dan uguma jirto. haddii maanta shaqadiisii aad baabi'isiin, ma waxaa rabtiin inuu qoray qaato? ma waxaa rabtiin inuu dagaaltamo? No, come on guys. wiilkan mustaqbaluu leeyahay, noqda kuwii taageeri lahay, garabkiisa ka muuqa lahay si uu adduunka uga muuqdo. ha noqonina kuwii la dhihi lahay Sharma Boy burburkiisa ayay ka dambeeyeen. aan wada taageerno kulligeena. haddaan u soo jeesto dhanka fanaaniinta Soomaaliyeed, nin walbo fanaan ah markuu Ingiriiska ka tago hadduu aado Muqdisho wuxuu ku dagaa guri fanaaniin. hadduu Muqdisho ka tago oo Hargeysa tago wuxuu ku dagaa guri fanaaniin. hadduu Hargeysa ka tago Nairobi imaado wuxuu ku dagaa guri fanaaniin. laakiin ninka fanaanka ah markuu dhib haysto, qof kastoo fanaan ah afkuu ka xirana, mana rabo arrintaas inuu ka hadlo. arrintan maanta Sharma Boy iyo Daahir Cali Sow iyo Shiino Culey iyo ragga dhan u dhaxeysana god qabiil bay ku biyo shubanaysaa, god qabiilay tegaysaa. ilma adeerayaalow haddaan tol iyo qaraabo nahay soomaalinimo naga wada dhexeyso wiilkaas yarka ah mustaqbalkiisa yaa la baabi'inin. wiilkaas yarka ah cuqdad ha ku beerinina. wiilkaas yarka ah faraha ka qaada, howshiisa ha wato, qoray ma wato, cid oo la dagaaltamaya ma jirto. afkiisoo maalana iyo maskaxdiisa iyo talentigiisa wiilkaas yarka ah faraha ka qaada.